Arsenal goal ma laga dhaliyay Arsenal ma badisay kama wada hadleen midda kale Champions League bilaagu soo wataaba laakiin taariikho caadi ah dhacay kooxdii Arsenal ahayd 122 sano iskoor koox u yaala inay gaarto ama dhaafto rekoorkaas dhigto oo ah 4 kulan oo bilaaw ah gool wili laga dhalin Bilbao Athletic Madrid Olympiacos iyo Slavia Prague iyo kullu wax loo iska bax adika horyaalka bis la yaabaneen Champions League xataa oo u jeedin 8 kulan oo xariira oo dhinac walba leh gool lagama dhalin iskoor korta oo Premier League dhankan ayadaaba meelay dhigataba oo ciyaaraha xiriirka gool laga dhalin taariikha markaan nii wada kooxdan gool ma laga dhalina goormee laga dhali doonaa sheekadiina aad laakiin hadda taariikh sameeysa la gaaray taariikh sameys xal laba 3 eberkii Yogaresa maqan Mourinho joogo Martinelli maqan Trossard joogo waxa maqan Gabriel waxa joogo Masquera Saliba maqan mid anu waan isha ugu dooryaankan waji malahan baqaayo wana baqa ma ku yaala ma qabo ya واسكو سو سكونا waa ku dardara waa ku jijibina adinka California la yaabantiin iyo Luis Kelly kaasa ka sii daran qamarjinimo iyo wax walba dhanka kale Champions League Bayern ku aad dad wax leeyahay Bayern tijaabinayna kulanka Bayern Athletic Madrid saasa la heedeen nimanka Arsenal laha sanadkan sanad ka awood badiyeen ma soo marin aniga hadda maartay faafaaki iyo buuqi iyo waxaas waa joojiyaan awooddaada ku tasho hambal yaa leeyahay taageerayaasha Arsenal guusha xal kaliya maan guulihiina kuwii soo marteen iyo kuwa soo socday dhamaan hadda Sunderland kulanka xiga waaye kulamo kalena waa soo socdaan hatta Bayern marka u baxayno Chelsea Tottenham Bayern waxa waaye Chelsea kulamadaasna waa nagu soo socdaan marka wax waaye awoodeen kulamadaas waa lagu fiirin rabaa Chelsea oo dariskana Tottenham oo Bayern waxaas lagu fiirin rabaa kulamadaas ay suugeena kuwaas marka dardarnaada waxa dhidin wareeg kale ni suugeena dhaha meel ni taala Arsenal gool ma laga dhaliyay sheekada waa dhaaftay oo ma bariyaan darbi waayo Arsenal ma badisay adiga waa ogtahay laakiin hadda Arsenal ma ka iskoor dhigtay si meel ku soo qorto iskoorada Arsenal tirsada taas meel waay macallishiinkiisa asxaabtayda dhamaan reer Arsenal isku dumo waxa leeyahay sanadkan waay muufa maraqa noogu jirto ajixinina dhanka kale Real Madrid waxa askaarkooda nin loo Maglaster saar mid la waxa la yaabana Liverpool soo arkooda oo Crystal Palace u dheelo maano Liverpool ka dhalna waa dardarooya waa andadoya hadda ninkii Maglaster ay labadan sano oo u dambeysay Real waa laga dhalinayaa waana laga badinayaa bash aan filma imaatana ka waran maxabadan Real iyo Liverpool la finaalaha ee Real ku xoog badan tahay finaal waa marka loo dafaysiisanay laakiin group waa hadii indhaha loo shidana Liverpool labadii kulan u dambeysay Liverpool xoog badan daawan oo fiican Aston Villa iyo Real Madrid si qatar u dheeshay systemka taageerayaasha Liverpool hadda way amaanayaan maalinka laga badiyay waa aynayaan dibin way dhaayeen Soomaalida dhaqankaas waa ku aqaan ma la yaabay macalinka guuleysto waa fiican yahay kala guuleysan hadda taageerayaasha Real kuwa waxa leeyahay macna Alonso macalin iskayar waa wax badan ma ogo caay ku bilaaway waa 2 kulan 1 kulan laga badinayo macalinka oo Liverpool kii sanadka raqabka qaado waa macalinkina xaganina ku kalsoonaada waa nigala badi karaa waa badi kartiin laakiin labadan kulan si fiican u dheelay Real waxay qaati ka taagan ninka Maglaster ahay Maglaster ugu siinayo taageerayaasha Liverpool Real gruubyada meel iska saarteen laakiin hal finaal ma ka qaadi kartaan bis hal finaal oo sanadahan dambe waagi Hillera ka qaadnay mal raba hadda Ronaldo iyo Bale iyo Luqluqani Vinicius Junior wax dhawaan dileen ma ka qaadi kartaan hadda Benzema xataa xilligiisa waa soo dileen marka nag oo haday noqotaan waa ni garaacan finaal haday noqoto waa ni garaacan laakiin gruubka adika ku adag guusha adika wato warka oo kooban Arsenal sanadkan ku xoog badan way waxa iska celi karmale Bayern oo aydan 16 kulan badisay hadda isku soo socdaan Bayern Arsenal kuwaadi labaad ku kala jira maxay u kala jira ma taqaanin Champions League
goolasha bis Bayern 14 gool dhalisay 3 gool laga dhaliyay 11 gool leedahay Arsenal 11 gool dhalisay wax gool laga ma dhalin 11 gool leedahay goolasha waa ka sameeyay laakiin Bayern aa gool badan 14 dhalisay ninkii Diaz ahay ikin oo la celi karno indha u shilanta inkastoo Diaz uu ka maqnaa doona ciyaarta oo Arsenal Diaz kaas u jeedaan oo buxurka iska daray nimankii Liverpool ahay macalinka Liverpool dhaliisha u yeeli kartiin taas bis way halkaas bis oo wax kala ma lahan way Diaz banaankiisu ku dhacay dirbilin hadii loo hadda gool dhaliso bala soo baxay gool badan oo dhalinayo 10 gool miya u dhaliyay 5 waa caawiye season ka socdo war soo dhawaadana leeyahay Arsenal abs way ama Nodigar saf ama Subimendi saf Yogar saf ama Marino saf Arsenal abs way